madashan oo ah madal isxafis madal midnimo madal wadajir oo ay dadka reer waqooyi maanta isku cafiyayaan isku calool xaadhanayaan kuna ballamayaan inay gacmaha isku qabsadaan danahooda iyo danaha dalka iyo hirgelinta doorashooyin hufan oo aan daahitaan lahayn maalin qaale kadib waxaan rabaa in aanu mahad celiyo gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi oo markii hawshan aanu bilaabaynay ayaanu tegey runtii keliya haddaan weydiiyey hawshaas inaan galo deetna si buuxda oo aan kala hadlahayn oo niyad sami leh iigu ballan qaaday iina siiyey kalsoonidiisa oo dhammaystiran xaqiiqatan gudoomiyuhu wuxuu muujiyey xilkasnimo wuxuu muujiyey odaynimo wuxuu muujiyey waayeelnimo wuxuu muujiyey daacadnimo iyo inay ka go'an tahay in hawshan hore loo dhaqaajiyo dadkuna ay gacmaha isqabsadaan ay wadajir u shaqeeyaan wuxuu wax shuruuda oo ku xidhan ma jirto hawsha inaan gebagabayno keliya waxaan qaadanaa waxa la yidhaahdo wixii aad keento aad iyo aad baan runtii ugu bogaadinayaa ugana mahadnaqaya waxaan sidaasi la mida ugu mahadnaqayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo isaguna intaasin leeg markii aan u tegay runtii idin shuruud la-aan ayaan kalsooni kugu siinaynaa waxaa la yidhaahdo wixii aad keento iyo waxa soo jeedisana sideeda ayaan u qaadanaynaa waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo qodobadii heshiiskaa ka soo baxay inaana midkoodna markay kalsoonida ay siiyeen war dambe iyo hadal dambe aan la gelin laakiin aan usoo bandhigay qodobada heshiiska isla markiina si buuxda ay u aqbaleen aad iyo aad baan runtii u bogaadinaya waxaa kaloo rabaa iyaga inaan bogaadiyo siyaasiyiintii kale ee ka soo jeeday gobollada waqooyi oo si kal furan oo qiimo badan dhammaantood soo dhoweeyey heshiiskaasi la gaadhay garbahana qabtay dhinacna iska taagay in loo midoobo hawshaasi maanta waxaynu wada joognaa inaynu soo afmeerno aynu soo gownaanadno wax kasta oo dood ahaa wax kasta oo kala duwanaansho aragtiyeed ahaa iyo aragti kasta oo laga kala qabay arrimaha qabsoomidda doorashooyinka quraasta xildhibaanada gobollada waqooyi ka soo gala baarlamaanka maanta laga bilaabana waxaynu u jeedsanaynaa waynu gacmaha isku qabsanaynaa waynu u midoobaynaa inaynu ka shaqayno hirgelinta doorasho ku dhacda wakhtiga ugu macquulsan ee suurtagalka waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan u mahadnaqo qof kasta oo kaalin ka geystay ama ka qayb qaatay ama isku dayey ama u soo duceeyey ama niyadda ka jeclaa inay hawshani dhammaato waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin waana idinka guddoonnay hawshaasi aad geyseen dadaalkad hurteen iyo ducada aad soo raaciseen intaba waxaanu dambayn kula dardaarmayaa dhammaan dadka ay arrintani khusayso in la iscafiyo in la islaab xaadho in gacmaha la isku qabsado howlaha qaranayna hor yaalla loola diyaargaroobo doorashooyinka gudoomiye cabdi xaashi cabdilaahi iyo mahdi maxamed guuleed waxaan iyagana kula dardaarmayaa inay si mugle uga shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka dadka ay matelaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan hirgelinta doorasho hufan oo loo tartamo oo dadku u siman yihiin waxaan leeyahay waxaa idin saaran ammaano ayaad qaadeen ammaanaduna waa culus tahay sida uu ilaahay ku sheegay qur-aankiisa buuraha dhulka iyo cirkuu soo bandhigay intuba waa diideen bini aadmiga ayaa aqbalay taasoo ku timid jahligiisa iyo isagoo ah mid dulmi badan marka mas-uuliyadda intaa leeg baa runta idin saaran waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inuu ilaahay idiin fududeeyo oo idiin dhib yareeyo ugu dambayn waxaan rabaa dhammaan siyaasiyiinta soomaaliyeed kuwa mansabyada haya iyo kuwa sugaya labadaba inaan kula dardaarmo dalka waxaad xilka haysaan ama aad rabtaan inaad ka qabataan dal aynu ognahay xaaladda uu ku sugaya xarnaa qof walba inuu xil iska saaro dhismaha haydihii dawliga ahaa ee laga maarmaanka u ah waxaan kula dardaarmaya inu cashar ka baranno waxyaabaha aynu ilaa hadda marayno iyo waxyaabihiina soo maray ay sababeen maqnaanshaha haydo dawliya oo aad iyo aad u qiimo badan oo aan la-aantood dalkani aanu ka gudbi karin meesha uu ku kufay ee uu maanta fadhiyo aynu rabna inaanu 4 sano kadib inaynaan ku kufin marka waxaan leeyahay dhammaan siyaasiyiinta
ilaahayna ka baryaa inuu garansiiyo in danta guud laga horreysiiyo danta gaarka ah waxa ugu mudan ee qof walba dantiisa gaar ka soo dhaxbaxaysaana ay tahay danta guud oo la horumariyo waxaan mar labaad u mahadcelinayaa qof kasta oo hawshan gacan ka geystay iyo qof kasta oo halkan maanta ka soo qayb galay kulankeennina waa inoo furan yahay